Emmanuel Todd wuxuu noqday ninka ugu hadalhaynta badan baraha bulshada usbuucan. Économique, est-ce qu'elle est inéluctable cette défaite? Alors, au cœur du problème, je mets plutôt les États-Unis et le monde anglo-américain. C'est une de la pronostic, c'était en 1976, ça s'appelait la chute finale. waa ninkii hore u saadaaliyey burburka nidaamka midowga Suufiyeed maantana saadaaliyey burburka reer galbeedku talow ma macquul galba adiga se maxad isleedahay. Eman waa qoraal Faransiis caan ah wuxuu noqday hadalhaynta galbeedka gaar ahaan Faransiiska markuu faafiyey bug ciwaankiisu yahay jabka reer galbeedka. ninkan 72 sano jirka ah wuxuu hadda ka hor qiyaasay burburkii midowgii Suufiyeed isagoo raacayo xaqaa'iq taagneed xilliga. Todd wuxuu leeyahay galbeedku waa nin jiran camal dagaalka Ukraine waa dhigbixii ugu cuslaa ayuu yiri reer galbeedku wajaho kadib markuu hub iyo balaayin lacag ah ku bixiyay dagaal isu bedelay mid fuuqsanayo awoodda reer galbeedka. wuxuuna raaciyay galbeedku wuxuu filayay in dhaqaalaha Ruushka burburi doono kadib cunaqabatayntii uu saaray galbeedku laakiin ma dhicin. waxaa sii dheer qasaaraha balaayinta lacagta ah ku baxday dagaaladii galbeedka aan dhamaadka lahayn sida kuwii Ciraaq iyo Afghanistan dagaalka loo yaqaano la dagaalanka argagixisada ee sidoo kale ah dhiigbax awoodda galbeedka. Todd waxa uu aaminsan yahay in Mareykanku uu isbedelay laga soo bilaabo 1980kii kadibna gaar ahaan muddadii u dhaxaysay sanadkii 1990 ilaa 2000 laga soo bilaabo in uu ahaa Mareykanku wadan wax soo saar leh warshadeyn leh oo isku filan una gudbay ama noqday wadan aan wax soo saar lahayn oo ku tiirsan warshad ahaan iyo dhaqaale ahaanba caalamka kale. Eman wuxuu leeyahay waxa uu isku dayga Mareykanku ku doonayo in uu ku dhiso boqortooyo military iyo mid siyaasadeedba u fasirtay daciifnimo ee aanu ahayn xoog iyo hoobasho aanu ahayn kor u socosho. dagaalada isdaba jooga ah ee ay ku qaadayso dhinacyada taagta daran ee adduunka sida Afghanistan iyo Ciraaq iyo Al-Qaacida America waxay isku dayaysaa in ay argagixiso quwadaha waaweyn ee adduunka sida Yurub, Japan, Russia, China oo ay u cadaynayso in doorkeeda uu yahay mid lagama maarmaan ah taasoo ah in la sugo amniga nidaamka dhaqaalaha adduunka. Todd waxa uu sheegay in Mareykanku aanu ugu dambeyn ku guuleysan doonin dhismaha boqortooyadan sababtoo ah waxaa ka maqan waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhismaha boqortooyada. 1. ma lahan awood dhaqaale oo ku filan taasoo lagu maalgeliyo balaarinta boqortooyada Mareykanka. 2. ma lahan fikrad caalami ah oo awood u leh in ay soo jiidato dhammaan dalalka kale ee adduunka sida awoodo leh xuquuq siman sidii ay samaysay boqortooyadii Roomaanka. sidaas awgeed ayuu Todd waxa uu rajaynayaa burburka nidaamka adduunka Mareykanka.